maalimihii u dambeeyey Somaliland waxa la hadal hayay inuu imanayo suldaanka guud ee qoomiyadda Oromada haddaba telefishinka Ariel waxa Hargeysa kula hadlay Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo kamid ah salaadiinta waaweyn ee Somaliland waxaan u sheegay inaanay marnaba aqbalaynin arrintaasi suldaanka oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri indhawaalaba waxa la isla dhexmarayay magaalada tan Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland wafdi Oromo ah idinku soo beegan oo doonaya dhaqanka waxay u socdaan waa qadiyadii ka dhacday hawaday runtii la yaabay nala noqotay arrinta maanta qadiyadda hawaday ka dhacday falkii xasuuqii loo geystay shacbiga aan waxba galabsan ee Soomaalida ah iyadoon aad iyo aad uga tiiraayoonay uga xunnahay dadka iyaga halkaas sidii loogu laayay ayaa waxa hadana yaabkiisa nagu noqotay oo aanu u qaadasho waan ugu noqotay halkan baa la idinku imanaya oo dhaqankii Oromo idin imanaya ta salaadiinta Habarawal waanu ka wada hadalnay shir weyn baanu ka galnay waxaanu ka soo saarnay afarta qodob waxay kala noqonayaan kow aad iyo aad waxaan uga xunnahay isla mar ahaantaana si tiiraayeen la uga xunnahay falkii bahalnimada ahaa ee ka dhacay hawaday ee lagu laayay dadkayga aan waxba galabsan laba waxa kale oo iyadana la yaab nagu noqotay oo aanan marnaba ooda ka rogayn waftiga la leeyahay Oromo mar haddii aanay soo marin oo aanay waxba ka ogeyn dawlad deegaankii Soomaalida Itoobiya iyo dawladdii federaalku iyo dawladdii Somaliland marnaba lagama yaabo inaanu qaabilno ama la kulanno waa qodob ka waa ganafkaan ku dhufanaynaa in aanan la kulmayn qaabilayn arrin aan duwalkii mandaqaduba ogeyn oo toos noogu imanaya waxay nagu tahay deelqaaf bay nagu tahay dawladaha gacanta ku haya dawlad deegaankii Soomaalida gacanta ku haya dawladdii dhexe federaalka gacanta ku haya intaas waa qodobada aan ku soo ururinayno waxa kale oo la yaaba ilaa maanta kama hayno qoomiyadii Oromada dawlad deegaankoodii kama hayno wax raali gelina dawladda dhexe ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa ka haynaa waa naga tacsiyadii dawlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar isagu waa u tafaxaytay isaga gacanta ku haya arrintii Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan waxa uu u mahadnaqay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan mahadnaq ballaaran u diraynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar kaalintii geesinimada lahayd ee uu ka qaatay qadiyadda iyada ah aaskii qaran uu sameeyay dadkayaga iyo sida uu hawsha ugu tafaxaydan yahay ayaanu madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida isagana ugu mahadnaqaynaa arrimihii abaaraha ka dhacay mandaqada geeska Afrika ee ka dhacay dadkayaga ku teedsan xuduudaha iyo deegaanka xataa Soomaalida kaalintii firfircooneyd uu ka qaatay madaxweynaha dawlad deegaanku Cabdi Maxamed Cumar isagana hambaliyaan u diraynaa insha Allah bidmillaahi kariim horumarka uu ka wado ummadayadii uu wado Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa